waxay ka mid ahay goobihii ugu quruxda badnaa ee aan joogay intii aan weli Ayuub Show waxaana aan booqday goobtan oo ay joogaan in ka badan 200 oo dhalinyaro ah kuwaasoo raba inay samaystaan waddo ay ku abuuri karaan mustaqbal qurux badan ahaan badi kama weyna 20 sano waxaana halkani ay u tahay goob ay wax ku akhristaan si lacag la'aan ah kuna abuuri karaan mustaqbal qurux badan maadaama akhrisku yahay mid horumariya maskaxda aadamaha xilli kasta asxaabta halkan waxa haatan ku sugan in ka badan sabab arkaysaan 120 arday kuwaas oo dhamaantood halkan wax ku akhrisanaya goobaha noocan oo kale hadii ay sii bataan waxay kor u qaadi karaan in dhalinyaro fara badan ay wax barato guud ahaan dalka goobtan ayaa waxa yaala kumanaan buug kuwaasoo isugu jira kuwa cilmiga sayniska kuwa barashada luqadaha iyo kuwa cilmiga guud labadaba waxaan kula kulmay gudaha maktabadda qaranka ee Siilaanyo dhalinyaro kala duwan kuwaasoo muujinaya isbeddelka nololeed ee ay ku samaysay maktabadani ay u yimaadaan akhriska waxaana ay ka sinaayeen dhalinyaradani kuwa muhiim u arka baahida loo qabo in la badiyo maktabadaha wax akhriska inta badan horta waa environment wax lagu akhrisan karo ardaydana aad u dhiirigelinaya sababtoo ah horta hablaha mashquulka ku badan guriga markay joogaan halkan waxaan u nimaadnaa inaan waqti badan aan helno oo wax ku akhrisano Sunday waxbarashadayada iyo jaamacadaha aan ku jirnay courseskiina looga baahnaa wixii aan ku dabirno oo ku akhrino maadaama mashquulkoodu iska badan yahay meeshan waa goob ardayda kor u qaadaysa yani dhiirigelinaysa in wax ku akhristaan marka waan jeclaan lahayn in wadanka lagu soo kordhiyo goobo badan oo National Library oo kala oo goob degan aad u xasiloon oo ku qaadan karaysa waqti qurux badan oo aad waxaad akhridanay ku gudahaan asxaabta waxyaabaha kale cajiibka aan ku arkay maktabadda Siilaanyo National Library ayaa waxa kamid ah in dibadda maktabadani ay fadhiyaan boqolaal dhalinyaro kuwaasi oo iyaguna hareeraha maktabadani wax ku akhrisanaya iyo banaanka maktabadda labadaba tani waxay ku tusaysaa in baahi weyn loo qabo in library-yo iyo maktabado fara badan guud ahaan laga sameeyo deegaanada iyo magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland caqabadahan ayaa hadii la dhameystiro waxa uu qabaa Axmed oo ah gudoomiyaha Siilaanyo National Library in horumar weyn ay ku yeeli lahayd daayirta kala duwan ee halkan u yimaada akhriska iyo horumarka maktabadda labadaba waxay furatay imika maktabadda qaranku 8 daarood ilaa 8 habeenimo iyadoo jimcahan xiran marka aan jecelnay in xukuumadda iyo xukuumadda dhexe wasaaradda waxbarashada iyo maaliyadda oo runtii iyagana aan halka jecelayn uga mahadnaqo oo running cost-ka ku baxa library iyagu bixiya dhismahana aad uga qayb qaatay inaynu ardayda dibadda fadhiisanaysa dhulka fadhiisanaysa inaynu dee qalab kuraasi miisas iyo shanfi soo dhigno bugaagtaa badan inoo imanaya sanad walba in goobo la dhigo loo kordhiyo dabaq sare oo lagu daro in lecture hallka aynu ka wada qayb qaadano in dawladda hoosanaynta in leeg ayaan iyagana furaya imika wada ogtiino dee habla aad u badan iyo dhalinyaro aad u badan aynu goobo laga yimaadaa habeenka waxa laga yaabaa in streetadan hareeraha ka xiga in aad u dhaag yihiin in iyadana in wadooyinka iyo leerarka wadooyinka ku xeeranba si security-ga ardayda imanaysa ay kor loogu qaado in taana dawladda hoosaan iyo dawladda dhexba inay iyadana juhdi xoog la geliyo Yiigsiga Axmed ee horumarinta maktabaddan ee mustaqbalka dhow ayaa sida mustaqbalka waxaan doonaynaa inaan dabaq kale ama labo lagu daro wadaragteeno barxad weyn ayaynu haysanaa maktabaddan ayaa waxay tahay ugu weyn ee wax akhriska guud ahaan Soomaaliland waxaana booqashada maktabaddan aan ku ogaaday in baahi weyn loo qabo in la horumariyo guud ahaan maktabadaha noocan oo kala ah muhiimna ay tahay in laga hirgeliyo deegaanada iyo magaalooyinka kala duwan waxaana taasi xoojinaysaa wax akhriska iyo kororka jiilka cusub ee wax bartay hore waxa loo yidhi markasta oo akhriyo oo markasta oo wax sii ogaato runtii aad ayay muhiim u yihiin in la horumariyo maktabadaha wax akhriska ee guud ahaan deegaanada dalka iyo guud ahaan deegaanada kale ee Soomaalidu ku nooshahay oo dhan ku xidhno Ayuub Show lana soco muuqaalaas